Mareykanka ayaa sheegay in uu duqeyn ku dilay hogaamiye ka tirsan Al-Shabaab iyo xaaskiisa oo mas'uul ka ahaa weerarkii saldhigga Mandabay. Horsoo sareeyna subaxnimo Maxamed Cali Maxamed ayaa ka waramaya. taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee magacooda loo soo gaabiyay Africom ayaa sheegay in la dilay hogaamiye ka tirsan Al-Shabaab oo mas'uul ka ah weerarkii saldhigga Mandabay iyo xaaskiisa iyo sidoo kale xubin ka tirsan ama xubin ka ahayd Al-Shabaab xaaskiisa. qoraal ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in labada qof lagu dilay weerar la beegsaday 22 bishan. wuxuu ahaa hogaamiye ka tirsan Al-Shabaab oo mas'uul ka ah qorsheynta iyo agaasinka howlgallada argagixisada ee xuduudda Kenya oo uu qabiir ku ahaa howlgallada, waxaana weerarkan lagu dilay ama wuxuu mas'uul ka ahaa weerarkii saldhigga ciidamada Mareykanka ee Mandabay ayaa lagu yiri qoraalka Africom. waxaa sidoo kale howlgalkan lagu dilay xaaskiisa oo xubin firfircoon ka ahayd Al-Shabaab dhexdeeda, sidoo kale mas'uulna ka ahayd dhaqdhaqaaqyada argagixisada ee kala duwan ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Africom. taliyaha ciidamada Africom General Stephen Townsend ayaa sheegay tan iyo 5 bishii Janaayo markaasi oo weerar ku dhacay ay Mareykanka iyo saaxiibadiisa ku raad joogeen maskaxdii mas'uulka ee weerarkaasi. weerarkan wuxuu cadeyn u yahay inaan sii wadi doono si aan kala joogs lahayn u raadsan doono ciddii mas'uulka ka ahayd weerarkii Mandabay iyo kuwii doonaya inay waxyeelo gaarsiiyaan Mareykanka iyo saaxiibada Afrika ayuu yiri taliyaha qaaradda Afrika ee ciidanka Mareykanka Stephen Townsend. weerarkan oo la fuliyay ama weerarkan oo ay si wajir u fuliyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ayaa ka dhacay degmada Saako ee gobolka Jubbada Dhexe sida lagu sheegay warka taliska Africom. weerarka saldhigga Mandabay waxaa lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah oo mid uu ahaa askari halka labada kale ay ahaayeen qandaraaslayaal la shaqeynaya ciidanka Kenya ee ku sugan ciidanka Mareykanka ee ku sugan saldhiggaasi. sidoo kale diyaaradaha ayaa la sheegay in loogu gubay weerarkaasi iyagoo goobta sidoo kale lagu dilay xubno kale oo Mareykan ka tirsan. beesha caalamka iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa dawladda Soomaaliya ugu baaqay in la qabto doorasho xor iyo xalaal ah kuna dhacdo waqtigeeda sida warkan uu ku ambaqaadaya Liibaan Nuur Xasan. war-saxaafadeed ay soo wada saareen wadamada iyo ururada daneeyaha arrimaha Soomaaliya ayaa loogu baaqay dhammaan qaybaha kala duwan ee siyaasadda iyo shacabka Soomaaliyeed inay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda loo qaban lahaa. war-saxaafadeedkan ayaa lagu yiri kadib meelmarintii sharciga doorashooyinka federaalka saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxay boorinayaan dhammaan saamilayda Soomaaliyeed inay ka wada shaqeeyaan sidii doorasho waqtigeeda loogu qaban lahaa. sharciga doorashooyinka federaalka Soomaaliya ayaa hadda u ansixiyay golaha shacabka waxaana saxiixay madaxweynaha Soomaaliya 20 bishan Febraayo. sharcigani waxa uu qayb ka yahay habshaqo sharciyeedka doorasho ee asaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah qabsoomidda doorashooyinka qaranka oo suurto gelinaya in tirada ugu badan ee muwaadiniinta ay codeeyaan. inkastoo tani ay tahay tallaabo muhiim ah haddana shaqo badan ayaa loo baahan yahay in la qabto si wax looga qabto su'aalaha badan ee muhiimka ah kuwaas oo lagama maarmaan u ah hirgelinta xeerkan. saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxay garwaaqsan yihiin mas'uuliyadda saaran guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka si uu u hirgeliyo sharciga doorashada. waxay carabka ku adkeynayaan sida dhaqsaha leh looga baahan yahay dhammaan dhinacyada ay khusayso oo ay ku jiraan dawladda federaalka Soomaaliya, dawlad goboleedyada, baarlamaanka federaalka ah iyo xisbiyada siyaasadeed inay ka wada shaqeeyaan iyaga oo taageero ka helaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo gudageli doona hawsha hirgelinta sharciga doorashada. saaxiibada caalamku waxay dib u milicsanayaan wada hadaladii badnaa ee ay la yeesheen gudoomiyayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah iyo waliba guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyagoo isla eegaya qaybaha uu ka koobnaanayo sharciga la doonayo in la qoro. qaybahaasi waxaa ku jira codeynta deegaan doorashooyinka, qoondeynta kuraasta loo qoondeynayo deegaan doorashooyinka, kala cadeynta kuraasta loo gaar yeelayo haweenka si loo xaqiijiyo ugu yaraan matalaadda 30% nidaamka loo marayo doorashada kuraasta loo qoondeeyay dadka reer Somaliland iyo matalaadda dadka degan gobolka Banaadir ay ku leeyihiin baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. saaxiibadu waxay ugu baaqayaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya isagoo la shaqeynaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wada tashina la sameynaya dawladda federaalka ee Soomaaliya, dawlad goboleedyada iyo dhinacyada kale ay khusayso arrintani in si dhaqso leh xal loogu helo. saaxiibada caalamka ayaa sidoo kale u arkay in sharciga xisbiyada siyaasadda uu qayb ka yahay habshaqo siyaasadeedka asaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah hirgelinta doorashooyin lagu qabto waqtigooda. sidaa darteed waxay carabka ku adkeynayaan muhiimadda ay leedahay in mudnaanta la siiyo ka baaraandigidda iyo ansixinta sharcigaas
uu soo sameeyey baarlamaanka federaalka ah. saaxiibadu waxay carabka ku sii adkeynayaan qabsoomidda doorashooyinka lagu kalsoonaan karo oo dhaca wakhtigii loogu talagalay oo lagu soo doorto baarlamaanka federaalka ah iyo madaxweynaha federaalka iyadoo loo marayo dastuurka ku-meelgaarka ee federaalka oo ay muhiim u yihiin xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya. saaxiibadu waxay carabka ku sii adkeynayaan sida dhaqsaha leh ee loogu baahan yahay wada shaqayn dhex marta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada si loo gaaro arrimahaas iyo arrimaha kale ee hortabinta u leh qaranka. war-saxaafadeedkan waxaa si wada jir ah u soo saaray dalalka iyo ururada kale ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, Belgiumka, Denmark, midowga Yurub, Ethiopia, Finland, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Talyaaniga, Norway, Sweden, Turkiga, boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka iyo qaramada midoobay. qaar ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka uu ka dilaacay caabuqa coronavirus ee wadanka Shiinaha ayaa dowladda ka dalbaday in dalka dib loogu soo celiyo. wariyahana Axmed Maxamed Ibraahim ayaa faahfaahinaya. Dr. Maxamed Daahir wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbarashada u jooga magaalada Wuhan oo halka uu ka bilowday caabuqa saameyntiisa adduunyada laga dareemay coronavirus. Marwalaad radio kulmiye ayaa wuxuu ka dalbaday dowladda Soomaaliya inay xil iska saarto soo daadgurintooda maadaama magaalada Wuhan ay wali ku jirto godoomin. dadka ajnabiga ah ku nool magaaladaas ayuu ku tilmaamay inay ka xaysteen dowladahooda iyagoo markii dambe karantiilay sidaana ay ku tageen guryahooda. inta wuxuu ku daray hadalkiisa Dr. Maxamed Daahir in dowladda Soomaaliya iyadoo adeegsanaysa saaxiibada caalamka waxa uu suurtagali karaa inay daadgurayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Wuhan ee dalka China. walaal waxa horta waa sax karantiil oo ku jirnaa caafimaadka dartiis iyo baarka xaaladda jirta awgeed marka wadankan hadda aan joogno wadan aan ku nahay qariib wadankan wuxuu la daala dhacaya oo baarki oo la dagaalamo la dagaalaya dhibaatada socota iyo cudurka sida xaaladda uu ku jiro marka dawladihii waxay sameeyeen maadaama xaaladii ay sii adkaan karto oo mar walba ay wax isbedeli karaan dadkoodii iyo raacayaadkoodii iyo wixii maartay ka jooga meeshan diplomats ama arday ama ganacsato wixii ka jooga gobolkan waliba quarantine ku jira gobolka kale Shiinaha xaaladana kala ka jirta ma aha oo laga bixi karaa maalin walba dadka jooga ka baxaan oo Soomaaliya ay tagaan iyo wadamo kale caalamka ah anaka maadaama quarantine ku jirno si ugu bixi karaa aysan jirin kaliya waxaan ku bixi karnaa diplomatic effort kaliya ama dadaal baalki diblomaasiyadeed oo dawladdeena ay samayso oo ay dawladdan wadankan ay la soo samayso oo ay samayso wax loo yaqaano evacuation plan ama bixin baalki maxaa la jiray toosa oo dawladdeena ay maartay baalki arrange garayso diyaar toos ay keento oo aan ku baxno. adduunyada dacaladiisa kale ayaa waxaa ku sii fidaya caabuqa coronavirus kaasoo haatan dadaalo fara badan loogu jiro in la soo dabargooyo. mahadsanid Axmed. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa lagu wadaa in maanta ay dhageysato dacwad loo haysto 7 nin oo ku eedeysan kiisas isugu jira dil iyo kufsi. Xabsi Khaliif Cumar ayaa faahfaahinaysa. waxaa maanta lagu ballansan yahay in maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ay ka bilaabato dhageysiga dacwad loo haysto 7 nin oo ku eedeysan kiiskii dilkii kufsiga isugu jiray ee sanadkii hore magaalada Garowe loogu geystay marxuum Hodan Axmed Maxamed Shanlayste. Garowe xalay waxa uu hooyday aabaha dhalay gabadha la dilay ee Hodan Axmed oo dhageysiga dacwadda la xiriirta kiiskan uu xayirnaa. Allah u naxariistay Hodan waxay ahayd gabar xaas ah waxaana 12 bishii Abriil ee sanadkii 2019 kufsi iyo dil loogu geystay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. maxkamadda ayaa 3 jeer oo hore dib u dhigtay kiiska marxuum Hodan Shanlayste kadib codsi uga yimid qoyskii ay ka dhalatay sida la sheegay. 4 maalin ka hor ayay maxkamaddu isku dayday in la furo garmaqalka kiiskan iyadoo 7 nin ee loo haysto ay maxkamadda ka soo hor muuqdeen balse waxaa la shaaciyay maalinkaas in qoyska marxuum Hodan ay dalbadeen in kiiskan dib loo dhigo inta uu ka imanayo Hodan aabaheed Axmed Shanlayste oo dalka ka maqnaa. Arbacada maanta ah ayaana lagu madalsan yahay in la furo dhageysiga garmaqalka kiiska Hodan Shanlayste oo marar badan dib u dhacay waxaana loo haystaa oo haatan u xiran falkii loo geystay Hodan 7 ruux oo rag ah. maamulka deegaanka la fule ayaa ku eedeeyay ciidamada booliska Soomaaliya ee la geeyay wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye in dhibaato ay ku hayaan xilligan shacabka halkaasi ku socdaala. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa mar kale faahfaahinaya. mukhtaar nuur geesi oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee deegaanka la foole ayaa sheegay in ciidamada la geeyay wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye dhibaato ay ku hayaan shacabka ku nool halkaasi loona baahan yahay in wax laga qabto. gudoomiyaha ayaa intaa ku daray hadalkiisa in ismihii ka socday wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ay istaagtay sidaa darteed ciidamadii loogu talagalay inay ilaaliyaan dhismaha wadadaasi ay ku mashquuleen dhibaateynta shacabka ku nool ceelasha biyaha iyo la foole sida uu hadalka u dhigay.
hadda walaalow gacay dhibaatan haysato oo ka jirta deegaanka xeesha biyaha hadda jidkaan markii la dhisaayay oo la dhaadhigay shaqada ka socotay ciidamo ilaalaha la keenay oo wadada waardiyeeyo oo haram cas la yiraahdo ilaahay amarkiisaan baaqanane beryahan dambada shacabka